Banaanbaxan oo lagu dalbanayay dhaqangelinta maqaamka magaalada Cadaado oo 23 Janaayo 2018 uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay ku shaqaynta hay'adda baarlamaanka Galmudug laakiin ilaa hadda aan la dhaqangelin ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka maamulka degmada iyo boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Cadaado. madaxweyne Farmaajo ayaa xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado waxa uu warbaahinta iyo qaybaha bulshada reer Cadaado u sheegay in baarlamaanka Galmudug uu ku shaqayn doono Cadaado. markii aan dhinac walba ka fiirinay in qayb ka mid ah dawladdu halka ku shaqayso baarlamaanka ah baarlamaanka intuu ku shaqeynaya go'aanka qaadam soo saas ma xaq waa saas weey xibintay ikhyaartiya baxsheen aabihii qaranku markii nala agmariyay dadkii aaminaad baxe abeergeel ninkii hor u qasho hilib ka iifaaday taayada in lagu aamushaa nooma aadana. inkastoo ilaa hadda aan la dhaqangelin hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa banaanbaxa maanta ka qabsooma Cadaado waxa uu daarnaa dhaqangelinta hadalka madaxweynaha Soomaaliya iyo in dawladdu ay ka dhabayso go'aankeedii ay ugu magacaawday xarunta baarlamaanka Galmudug magaalada Cadaado. banaanbaxayaasha oo socod ku soo maray gudaha magaalada Cadaado watayna boorar ka turjumayay rabitaanka shacabka magaalada Cadaado ayaa ugu dambeyn iskugu soo xoomay afaafka hore ee madaxtooyada magaalada Cadaado waxaana halkaasi kula hadlay odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado. waxaanu tirsanaynaa annaga madaxweynaha Soomaaliya dawladda federaalka wuxuu ku magacaabay Cadaado inay tahay xarunta baarlamaanka waxaan rabnaa gogosha Cadaado inay ka dhacdo xarunta baarlamaanka ka dhacdo madaxweynaha shalay waxaan la weydiistay inuu Cadaado yimaado wixii dad darisna walaalahana la siiyay ma haysano waxaan haysanaa wixii madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo uu noo sheegay yaan loo celin 83 ay ka bilaabatay cadaalad darro gobolada mudug iyo galgaduud dhaxdooda bartamahoodaan joognaa waxaan rabnaa oo madaxda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre aan u sheegaynaa reer Cadaado mucaarad ma ahan dawladooda ma diidana Galmudug in la dhiso kama soo horjeedaan waxay rabaan xaruntii baarlamaanka ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xaaf ay bixiyeen nolomada sheego muslim iyo gaalo waxaan ku dacweynaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo been annaga nooma sheegi karo kana yeeliba mayno ilaaha afkiisa ka keenay haddii uu diido oo caalamka markaa maxkamad isla tagno uu diido tii xasan sheekhna waa laga laaban caasimad ma laha Galmudug hadda loo samaynayaa ma jirto waxaan rabnaa in lagu shaqeeyo wixii naloo magacaabay oo naloo sheego dawladdu noo sheegtay waxaanan aragnaa inay tahay dekreeto wax madaxweyne sheegay oo dekreeto uu ku magacaabay haddii aysan jirinin xaruntii baarlamaanka ee degmada Cadaado ma jirtaanu leenahay madaxtooyada Dhuuso Mareebeen ma jirto madaxweynaha taana magacaabay tan madaxweynaha magacaabay ma jirto Dhuuso Mareeb waxa ka socda wax nagu matalaawo ma jiraan waxa noogu maqno ma jiraan waxaan ka doonaynaa haddii wax noocaas ma jiraan oon ahayn wixii xuquuqdeena ahaa oo naloo keeno oo nala ku maamuuso oo nala kugu dhawaaqo oo aan ku shaqayso Cadaado sidaasaan qorraxda u taaganahay. banaanbaxan waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sugan yahay magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug waxaana ilaa iyo hadda dawladda Soomaaliya aysan ka hadlin tabashada reer Cadaado iyada oo taas bedelkeeda warbaahinta u sheegtay in magaalada Dhuuso Mareeb ay ku dhisi doonto Galmudug loo dhan yahay. Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta Goobjoog magaalada Cadaado.